السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkayga amba walaashayda muslimadda ahay waxaa laga yaabaa in aad ku wareersan tahay oo isweydiinayso maxaa dhacay sababta dadku ay si fiican kuula dhaqmi la'yihiin, maxaa dhacay oo lagu ixtiraami la'yahay, maxaa dhacay oo lagu qadarin la'yahay. waxaad ogaataa ood hilmaamsan tahay qadiyaddu arrinta aad aaminsan tahay inay ka duwan tahay, sababtoo ah hore loo yidhi caamil innaas bimaa tuxibbu an yucaamiluka bihi. dadka kula dhaqan waxaad jeceshahay adigu in lagula dhaqmo. haddaad jeceshahay in lagu tixgeliyo, lagu ixtiraamo, lagu qadariyo, mucaamalo wanaagsan dadku inay kula yimaadaan, adigu horta marka koowaad dee bilow oo dadka si fiican ula dhaqan oo beenta ka ilaali oo ha xamanin oo wax weyn qishka ka ilaali ummadda muslimiinta ah. walaalkaaga muslimka ah u dhoola caddee. waxaa laga yaabaa haddii aad sidaas samayso oo adigu marka koowaad ka bilowdo naftaada inaad dadka kula dhaqanto dhaqan wanaagsan, inay iyaguna markaas ay kuula dhaqmayaan. maxaa yeelay aljazaa'u min jinsi alcamal. abaalmarinta waxaa la yidhahdaa inta badan waxay waafaqsan tahay shaqada iyo camalka aad qabatay. haddaad maanta shaqayso oo camal aad soo qabato, abaalmarinta iyo waxa weeye mushqaayadda lagu siinayaa waxay noqonaysaa mid waafaqsan camalkaaga, lagana badin maayo, lagana yeelin maayo. waa mid munaasib ku ah shaqadii aad qabatay. sidaa awgeed waxaad ka bilowdaa naftaada adigu marka koowaad dadka inaad si fiican ula dhaqanto. naftaada ku tarbiyadee oo dhaqan iyo akhlaaq iyo usluub wanaagsan uga dhig in aad dadka shakhsiyan adigu aad ula dhaqanto mucaamalo wanaagsan, dhaqan wanaagsan, dhola caddayn. markaas kadib ayay dadkuna kugula dhaqmi doonaan dhaqan iyo dabeecad wanaagsan.